dhisin oo kaliya mar walba aad inta dhistid inuu hadhow sida macnaha gaalada dambe ku dhisanto waa adkaanaysaa soo mar walba aad gacmaha dhigaysid ha ka tagin gacanta dambe marka dhinacaan dhahdid haddana dhinaca kale waa inaad macnaha haddaad 10 dhahdid dhinaca kale waa inaad 10 dhahdaa gacmaha exercise ugu dambeeya waa gacanta dambe roobkan waxaa waa xarigan markaad saas dhahdid waxaa intuu weyneynayaa kuwa kale badanaa waxay target garaynaya meesha dambe laakiin kan particular intuu fiicaya meeshaas haddaad shaatin aa xiratid fanaanad markaad xirtid ku dhigto mar walba tricepka baashaan dee hilmaamina let me show you how to do it okay guys وجدتي وحن كهدلاي نقف فنان يدرب سو خرتو وينو غعان وينو ليهي يا تصبو عبديري فلكس جراي شو gacmaha tuswa caawna waxa ka shaqeynayna ya caaw sida dareemaysa gacmaha runtii waxyaalahan uu jooga meesha ka maqan brother si wacan ani wiiga lagu bedela qeyrin soo diyaarshay wiigan kugu bedela miya warna waa maasanta oo jeedin hada waxaan bilaabnay haday waxa dhisana tricep waa gacanta dambe waxa loo yaqaano hada bicep kan bilaabnay nala socdo come on push go معلم داي waxa uu dhahay waxay white-ka oo macnaha gacanta zayd loo kala furay hada close grip waxa loo yaqaano hoos waa bir kala nooc kala oo jeedin markuu soo dhaho come on go marka dumbbell-ka bicep-ka noocan ay dhaysiin hal dhinac la tirsada waxa ay leedahay labada dhinac bas la tirsid waxa waaye loo baahan hal dhinac leh come on waa muhiim inaad biyo cabtiin jimka marka joogto hydration Come on, معلم. Last one. I love that. صاحبكي هذا وحنا تسعة بعشان سيد الله ده سو سيد الصحة وجدين ترتيب أساس الله ده it's all about isolation كمان slow motion وحلو يقانا ترتيب come on ما شاء الله هذا هو اللي بسته بايسر مركز يسينا ولي هنا كتجينا حاجة لك مركز صار لهذيت هذا عنت هذا يقعد كوس ما حطه عشان كل ما وحالي كرتا 6 سنة أو 4 سنة وحلو يقانا 10 to 12 reps انت جرو عرفت هذه برت خفيف تاو كبر سكتين مركز هذا كبر حسين قاع اللي يريس والله ready boss
وكون قاعد معها exercise ugu dambeeyay waa gacmaha caawa maxaa yeelay gacanta waa ka shaqeynay gacanta horena waa ka shaqeynay laakiin waxa ugu muhiimsan gacmaha markaad dhehaysiin waa inaad weligaada ka tagin waxa loo yaqaano forearms waa inaad mar walba aadisiin haddii kale intaad ka weynaanaysin inta wallaahi waxaan dhihi jiray doorada maaragtay timaha leh chicken marka saanaa loo dhahaa waa la tusaaya So hal dhinac la tirsanaysa had 6 dhinacan ma tirinayo dhinacan la tirinayo 7 so 3 7 ama 4 7 waxaad ka dhigi kartiin bacdi inta jaamna 10 12 waxaad ka dhigi kartiin haddii birta culusta bariyo soo qaado noocan waa nooc mashiin kale oo lagu dhiso gacmaha hoose hadduuna jiimkaada uuna haysanin so wax walba oo lagu dhigi karo forearmka waa muhiim ha ka tagina mar walba hadda waana tusoo sida loo dhaco arrinta warm up waa fududahay waa ku darsanaa laakiin muhiimadda waxaa waa in laga tagay gacmaha hoose macalinka gacmaha hadda waa dhammaynay waa la flex gray maana waa sidoo la inta xaafad ka tagay haddii waa la yidhi maxaa yeelay gacmihii hadda isku soo laabi lahay laakiin dhib ma laha saan waa naqaanaa